أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. الصوم هذا محله ومبحثه، ودرسيني شن iyo tobnaad ee ka mid ah kitaabkeenii الرسالة الجامعة والتذكرة النافعة. musanifku raximahullahu tacaala saan horay usoo sheegnay risaaladani waxay ka kooban tahay 3 qaybood. qaybta koobaad oo ah caqiidadii iyo ilaahiyaadkii uu kasoo baxay, qaybtii labaad oo ah cibaadaadkii ama yaan kusoo jirnay ama fiqigii, salaadii iyo dahaaradii ayaan soo ogaanay oo aan soo sharaxnay. markuu salaada dhameeyey arkaanul islaamka, salaada waxaa ku xiga soomka ayaa ku xiga. marka soomkii iyo axkaamtiisii ayaan halkan ka gelaynaa insha allahu tacaala. wa ama sawmu sawmkii, wa huwa sawmku athaalithu waa midka saddexaad oo athaalithu waa midka saddexaynahayo oo min arkaani lislaami, islaamka tiirarkiisa ka mid ahe. fa huwa sawmkum imsaakun afhaysasho weeye, imsaagoo macruufun la yaqaano, calaa wajhin qaab loo afhaysto, wejka oo makhsuusin la khasisay. wa minhu wejkaas makhsuuska ayuu ka mid ahaaday anniyatu ayaa ka mida likulli yowmin, maalin kasta la niyoodo. wa tabyiituhaa niyada bariisiinteedana waa waajib min alleyli, habeenkii la bariisiiyo. wal imsaaku afhaysashana waa waajib canilmufadiraati, kuwii wax afurinahaya laga afhaysto, min adacaami iyo washaraabi iyo waljimaaci iyo walistimnaa'i bimubaasharatin ah, iyo walistiqaa'ati iska matajin bilikhtiyaari la iska matajiyo. wa ama sawmu soomka luqa ahaan waxaa lagu yidhaahdaa al imsaak, amaa xagga sharciga waxaa lagu yidhaahdaa soom al imsaaku can jamiici almufadiraati, waa afhaysasho laga afhaysto kuwa wax afurinahaya dhammaan laga afhaysto. min duluuci alfajri ilaa quruubi shamsi, laga bilaabo markuu fajarka salaada subax ay dhalato ilaa qoraxdu ay ka dhacdana laga afhaysto shay mufadir ahoo wax afuriya, laguna afhaysto biniyatin makhsuusa, niyo khaasana lagu afhaysto oo ah inaad biri soomaysid, maalin ramadaana aad ka soomaysid. calaa wajhin makhsuusina loo afhaysto, yacni wej makhsuus ah oo shuruudiisii la ilaaliyana loo afhaysto. soomka ilaahi subxaanahu wa tacaala ayaa waajibiyey, qur-aankiisuuna ku sheegay oo yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaamu kamaa kutiba cala aladiina min qablikum lacalakum tattaquun. duulkii ilaahay iyo rasuulkiisa rumeeyow, ilaahay wuxuu idinku waajibiyey soom sida uu ugu waajibiyey kuwii idinka horeeyey. saasuu alla leeyahay subxaanahu wa tacaala. soomka waxaa la waajibiyey sanadkii labaad ee hijrada, bisha shacbaan, markii nebigu uu intuu maka kasoo hijrooday madiine uu yimid. sanadkii koobaad lama waajibinin, sanadkii labaad baa la waajibiyey, bisha shacbaan dhexdeedaa la waajibiyey. nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu soomay 9 ramadaan ayuu soomay. 9 ramadaanba nawaaqis ayay ahaayeen ilaa hal xaba mooye. nawaaqis waxaa looga jeedaa yacni ma dhammaystirmin, soddon ma ahayn macnaha, ee wuxuu soomay nebigu calayhi salaatu wasalaam 9 ramadaan. 9 ramadaan 8 ka mid ah wuxuu nebigu soomay 10 iyo waxaan ka wadaa 29 buu soomay. hal xaboo ka midana 30 buu soomay oo dhammaystiray. bisha ramadaan waa bisha 9aad ee ka mida shuhuurta carabiga ah, oo bilaha marka lasoo tiriyo, biluhu sida bilahan carabiga waxay ka bilowdaan ama qamarigu sanadka zaka laga bilaaba, bisha zako oo loo yaqaano muxaramna waa la dhahaa, laakiin dadku maxay u yaqaanaan? zako ayay u yaqaanaan. haddii laga soo tiriyo marka zako, safar, mawlid, maalmadoone, jumaadul uula, jumaadul aakhir, rajab, shacbaan, ramadaan waxay noqonaysaa marka bisha 9aad oo ka mida shuhuurta carabiga ah. waxaa la yidhi waa afdalu shuhuuri, bilaha midda ugu fadliga badan weeye bisha ramadaan. ramadaan waxaa loogu magacaabaa la yidhi carabtii markay bilaha magacyaalkooda dejinaysay
oo ay bilaha magac u bixinaysa